mashruucan lagu gaarsiinayo biyaha nadiifka ah dadka danta yar ayaa waxa ay wasaaradda tamarta kheyraadka biyaha dowladda federaalka Soomaaliya ka caawinaya qaar kamid ah wadamada saaxiibka la ah sida dowladda Sweden waxaana lagu talagalay inuu socdo 4 sano ee soo socota agaasimaha waaxda saadaasha biyaha ee wasaaradda tamarta kheyraadka biyaha xukuumadda federaalka Soomaaliya injineer Axmed Maxamed Xasan ayaa sheegay in mashruucan uu wax badan ka tari doono dalka kaasoo ay ka faa'iideysan doonaan dadka danta yar. mashruucan waxa isla daahfuray wasaaradda tamarta kheyraadka biyaha iyo hay'adda ADRA. mashruucan waxa dhaqaalihiisa baxshay hay'adda lagu magacaabo SIDA ee dowladda Sweden. mashruucan ujeedooyinkiisa ugu weyn ayaa ah in sare loo qaado biyaha dadka reemiga si loo gaarsiiyo tayadooda iyo biyo nadiif ah. ujeedooyinka mashruucan ayaa ah hadafyada ugu waaweyn ee dowladda xoog ku saarayso arrimaha horumarinta kheyraadka biyaha. mashruucan ayaa wuxuu alignment leeyahay qorshaha horumarinta qaranka qaybtiisa labaad iyo sidoo kale tubta arrimaha bulshada oo wasaaraddu qayb ka mid tahay tubta arrimaha bulshada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha. mashruucan waxaan ka rajaynaynaa wuxuu bilaabanayaa sanadkan November 2019 oo hadda aan ku jirno oo gabagaba ah wuxuuna dhammaan doonaa 4 sano kadib 2023. mashruucan ujeedooyinkiisa ugu weyn ayaa ah in dadka reemiga ah wax sare loo qaado gaarsiinta biyaha iyadoo la hirgelin doono ceelal dheer iyo sidoo kale ceelal hadda jira oo dumayna la dayactiri doono. sidoo kale waxaa ku jiri doona qaybaha ah in biyo qabadyo loo sameeyo meelaha taagaga ama biyuhu ay ka soo daataan ama aan laga faa'iideysan oo dadka fatahaad ku sababto. mashruucan biyaha nadiifka lagu siinayo dadka danta yar waxaa ku baxaya lacag gaaraysa 6.8 milyan oo doolarka Mareykanka ah waxaana wasaaraddu ay xoog saaraysaa sidii dadkii loogu talagalay loo gaarsiin lahaa. Cabdiqaadir Shacab, warbaahinta qaranka, Muqdisho.